بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا عبد القادر إذن soo jeedinaya cashar ku saabsan naxwaha afka Soomaaliga. Waana qaybtii shanaad ama cutubka shanaad ayaan maraynaa. Wuxuuna ku saabsan yahay magacyada afka Soomaaliga ama pronomen ama pronouns oo magacyada afka Soomaaliga ayuu ku saabsan yahay. Guud ahaan sidaan horay aan si guud ahaan uga waramay magacyada afka Soomaaliga waxaa guud ahaan loo qaybiyaa ilaa iyo 5 qayb oo waaweyn sida hoos ku qoran hadda markaad fiirisid casharkan. Horta marka hore aan sharaxno waa maxay magacyaal ama pronouns waa maxay? Waa erey u taagan ama loo isticmaalo meesha uu magaca geli lahaa, meesha magaca ama substantive uu geli lahaa ayuu galahayaa. Ha ahaado magac shakhsiyeed, ha ahaado xayawaan ama shay ha ahaado. Marka waa magac shay ha ahaado meesha magac ayuu galayaa. Pronoun waa magac macnaha magac buu u tagan yahay. Marka guud ahaan magacyada ama magacyada afka Soomaaliga waxaa loo qaybiyaa ilaa 5 qaybood oo waaweyn. 5 qaybood ayay u kala baxaan waaweyn. Qayb waliba gooni ayaan uga hadli doonaa. Qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa magacyada shakhsiyeed. Waa shakhsiga gaarka ah sida maaragtay aniga, adiga, isaga, aan, aad iyo wixii la mid ah. Isagu waan baran doonaa, hal baan u qaadan doonaa. Kan labaad waa magacyo lahaansho. Wuxuu tilmaamayaa wax la leeyahay. Tusaale kayga, kiisa, teeda iyo teena waa lahaansho. Wax adigu aad leedahay waay, macnaa possessive, wax adigu aad leedahay waay. Tan kale saddexaad waxa ay tahay ama qaybta saddexaad waa magacyo celin ama noqod. Soomaaliga noqodka ama reflexive waxa kugu soo noqonaya waa hal erey kale. Istaas waxay u tagan tahay kaliya waxyaabaha maaragtay kugu soo noqonaya reflexiga ah. Is kaliya weeyaan Soomaaliga. Magacyo tusmo wax tilmaamaya. Waxbuu noo tilmaamaya. Kan baa ka mid ah, kaas, kuwan, kuwaas iyo wixii la mid ah. Kan shanaad ugu dambeeya waxa weeyaan magacyo su'aaleed. Su'aal buu noo tilmaamaya waxyaabaha su'aasha ku saabsan. Maxaa ka mid ah? Maxay, ayo, kuma. Waa kulli waa magacyo weeyaan. Bal hore aan u socono. Casharkan mar baan si guud uga soo waramay. Maanta kor baan u marahayaa. Waa guud ahaan marka waa 5tii anigu aan soo sheegay hadda oo aan shax ama jaantus ahaan aan ku soo gudbinay. Jaantus ahaan baan doonaya inaan ku soo gudbiyo. Waa kii hore aan ku celinaya kaliya waa magacyo shakhsiyeed. Marka koowaad, kan labaad waa magacyo lahaansho. Kan saddexaad waa magacyo celis ama noqod. Kan afraad waa magacyo tusmeed. Kan shanaad waa magacyo weydiimeed ama su'aaleed. Saa doonta macnaha aad dhihi kartaa. Afka Ingiriiska waxa weeyaan kan koowaad waa personal pronouns weeyaan. Kan labaad possessive pronouns. Kan saddexaad waa reflexive, waa kan sheegay hadda waxa weeye is weeyaan. Kan afraad waa magacyo tusmeed. Kan shanaadna waa magacyo weydiimeed. Marka jaantuskan ayaan hadda ku soo bandhigay. Wax kale ma ahan, waa si dadku si sahal oo u kooban ay u xifdin karaan. Marka jaantuskii aan maaragtay marba noocyo u yeelay. Marka koowaad baan qaadanaa. Kan koowaad baan hadda ka bilaabaynaa maanta casharkeena. Kan koowaad waa maxay? Waa magacyo shakhsiyeed. Waa maxay? Waa Somali personal pronouns ka shakhsiyeedka waa maxay? Waan baranaynaa insha Allah. Marka magacyo shakhsiyeedka waa erey u taagan ama loo isticmaalo meesha uu magaca shakhsiga ah geli lahaa. Marka magacyada shakhsiyada afka Soomaaliga waxaa ka mid ah aniga iyo anigu. U fiirso, aniga baa u dambeysa marna baa u dambeysa. Waan baran doonaa kala duwanaansho weeyaan. Aniga haddaa dhahdo anigu way kala duwan yihiin. Waa sila magacyaalka laakiin waxay leeyihiin qaab kale oo kala duwan. Adiga ama adigu, isaga, idinka ama idinku, annaga ama inagu, aan, aad, uu. Kuwa gaagaaban ayaguna arkaysaan. Aan, aad, uu, ay, aanu iyo aynu waa magacyo gaaban baa la yiraahdaa. Waan baran doonaa. Tusaale ahaan, Axmed waa wiil wanaagsan. Meeshii Axmed aad gelin lahayd, isagu waa wiil wanaagsan baad dhihi kartaa. Fardowso waa gabar wax barata. Waxaad dhihi kartaa iyadu waa gabar wax barata. Wiilkan iyo gabadhan waa walaalo. Iyagu waa walaalo. Meeshii wiilkii gabadha iyaga ayaa galay. Markaan sii dhexgalno qaybaha magacyada shakhsiyeedka ama Somali personal pronouns ka naftirkiisa ay wuxuu qaybsamaa ilaa 4 qaybood.
magacyaalka shakhsiyaadka ayaa wuxuu u qaybsamaa afar qaybood. maxaa ka mid a kan koowaad haddii aan fiirino waa magacyeel asaleed, asal wey kan asal baa layidhaha, asalka meeshuu ka yimid ama authentic weeyaan. aniga acda meesha aniga iyo adiga iyo isaga waa asalka meeshuu ka yimid waaye magacyaalka afka soomaaliga. iyada baa u dambaysa, annaga, idinka iyo iyaga. laakiin waxaa jira qaybta labaad magacyeel oo dheer ama magacyeel oo waxaa la yidhaha abyan ama leh qaab maaragtay qaab la yeele qayb yeele buu leeyahay yeele. waa maxay subjective form uu qaadanaya waa magacyaalka yeele haddaa dhahdood waxaa ka mid a anigu, adigu, isagu ama asagu, iyadu, ayadu, annagu, inagu, idinku iyo iyagu ama ayagu. maxay ku kala duwan yihiin macnaa kii hore? marka si fiican u fiirisid kii hore waxay kaga duwan yihiin runtii waxay raali lahaada. kii hore waxay kaga duwan yihiin markaan fiirsid number kow waxa weye aniga wey. haddaad tirahda aniga waxaan ahay wiil, marka anigaas waa sax, laakiin ma ahan qaab oo yeele ahaan maaha. markaad tirahda waxay noqonaysaa yeele weeyaan, adiga qabanaysa. laakiin aniga xoogaa way jilicsan tahay, waa la isticmaali karaa, laakiin badanaas yeele ahaan looma isticmaali karo. marka rabta inaad yeele ka dhigtid anigu baa leedahay, anigu baad gelinaysaa meesha aad ay ka tahay, ama isagu baa leedahay, isaga ma ah. isaga waa sax, laakiin waa asalkii weeyaan. saas oo kale idinku baa leedahay, idinka ma dhehaysid. nambar saddexaad waa maxay? magacyeel gaaban. magacyeel gaaban baa jira oo isagana ah yeele weeyaan, subject isagana waxbuu fulinayaa. waxaa ka mid a aan, aad, uu, ay, aanu ama aynu. marka waa magacyeel gaaban. markaad fiirsid waxay ku dhaqmaan sida magacyaalka caadiga ah. waxaa jira magacyeelo kale oo u shaqeeya qaab la yeele ama object u shaqeeya, object pronouns. waxaa ka mid a i, ku, na, ina, idin baa ka mid a. bal aan gudubno. waa jaantus baan ka dhigay hadda qaybihii afarta qaybood u qaybsanaa magaca afka soomaaliga. waa si loo fahmo oo si kooban markaad rabta inaad u fahamtid ama aad rabta inaad cashar u jeedisid, sidaan baa usoo koobi kartaa. inta anigu aan sharxaya oo kale wax kale kuma duwana. waa number kow waa magacyeel asaleed, authentic pronouns. number laba magacyeel dheer oo abyan ama yeele ah. number saddex number laba waa subject, waa kuwa wax subjectiga weeyaan, waa long, waana dheer yihiin. magacyeel maaragtay gaaban ama yeele ah, aan, aanu, aad, aydin, uu, waa magacyeel gaaban weeyaan, laakiin waana yeele. kan afraad, qaybta afraad waa magacyeel la yeele weeyaan. la yeele waa maxay? waa wax object wey, waa wax ku dhacaya weeyaan, waa shayga la yeelaha. marka i, ku, na, ina iyo idin ayaa loo qaybiya inta badan. waa isla jaantuskii oo aan marba mida u yeelay, wax kale ma ahan. halkan waxaan ku soo koobay qaybaha guud ee magacyeelada oo maaragtay waxaa ku tusaya marka uu yahay uu gaaban yahay iyo marka uu dheer yahay iyo marka uu yeele yahay, la yeele yahay ayaan tusaalooyin maaragtay kusoo koobay. waa jaantus yar, si fiican looma arko, indhuhu ma qabanayaan, laakiin waxaan u malaynayaa haddii si aad loo fiiriyo in la arki karo. waa number kow waa keli ahaan markuu yahay waa aniga. number labaad oo keliya waa adigu. number saddexaad oo lab ah waa isagu. dhedigiina waxa weeyaan iyadu. wadarti waa maxay? annagu weeyaan, annagu oo ah anigu marka kuma jiro. marka annagu haddaan dhaho annagu ay yidhaahdaan aniga kuma jiro, ama qofka markaasayta meesha tagan kuma jiro, qof baa ka maqan. laakiin marka ay dadka dhan kuwada jiraan, inagu wey, dadka dhan meesha joogo inagu buu noqonaya. laakiin annagu excluding wey, marka waxbaa ka maqan, qof baa ka maqan. waxaa kaloo ka mid ah wadarta kale oo idinka ah. idinka waxa weeyaan idinku oo kale weeyaan. kan saddexaad waa wadarta iyagu oo kale. marka marna waa iyagoo gaaban, aan, aad, uu, ay, aanu, aynu. kolomkaas waa magacyaalka gaaban oo ujeedaa aad ayaa u dambaysta. la yeelaha waa ujeedaa i, ku, qaar kale sida labkay dhediga ma leh oo kan labaad ma lahan la yeele, laakiin kuwo kale way leeyihin na, ina iyo idin. kan u dambeeyana ma leh. kuwa kan waa tusaalooyin aan ku muujinayo oo aad larba ardayga inuu akhriyo oo barto. tusaale kasoo qaad
markaan dhaho waxa aan joogaa xafiiska waxa aan taas waa maxay waa magacuyeel gaaban waana yeele weeye macnaha waxa weeyaan subjectiga wey qofki wax suubanahay waa yeele haddaan dhaho waxaa joogaa xafiiska waxaa joogaa laakiin waxa aantaas waxay muujinaysaa waa pronounki ama magacuyeelkii oo macnaha oo ah magacuyeelkii oo wax fulinaya weeyaan oo yeelaha aha weeyaan taasoo kale tusaalaha labaad bal fiiri waxa aad tahay wiil fiican waxa aad tahay wiil fiican aadkaas yaa ah waxaad tahay wiil fiican waa dhihi kartaa laakiin maxaa maqan aadkaas yaa miin waad soo gaabi kartaa waxaad waa dhihi kartaa laakiin si loo ogaado waxa aad markaad kala saarto waxa ciraabtiis waan baran doonaa qurub baa la yidhahdaa aadna waxa waaye magacuyeelkii gaabnaa oona ahaa yeelihii tahayna waa falkii wiil fiican wiilkana waxa weeyaan waa wiil fiican weye muxuu ahaa objectiga wiil fiican buu noqonaa wiilka marka fiicanta waa maaragtay waxay kabaysaa ama ay ku noqonaysaa maaragtay isla socdaan qaab kalena waxay tahay waa adjective wey laakiin marka wiil fiican waa wiilkaas qofka maaragtay la yeelaha ah marka tusaalaha kale idinkaad akhrisanaysaan maraba kelibka inaan ku dheeraado halkan waa tusaalooyin magacuyeel ah oo magacuyeel dheer waaye marka kuwa dheer anigu adigu isagu iyadu annagu idinku adigu iyagu waa magacuyeelkii oo dheer oo ah yeele qaab yeele buu u shaqaynaya u fiirsa qaab yeele dhowr tusaalan ka akhrisan kara anigu waxa aan dhageysanayaa warka habeennimo anigu waxa aan dhageysanayaa warka habeennimo adigu waxa aad tahay qof xoog badan u fiirso isagu waxa uu dhigtaa dugsi wanaagsan inta kale dadka akhrisanaysaan waa idin calaamadeey oo ah magacuyeelka inta casaanka ah ama guduudan waa magacuyeel yeele yeele waa maxay waa kii falka suubinahay waa subjectiga weeyaan saas oo kale magacuyeel oo gaaban waa kuwa gaaban haddaad maqasho magacuyeel gaaban oo ah waa yeele asagana waxbuu suubinaya waa maxay tusaale waxa aan aaday afgooye shalay yaa aaday afgooye aanta yaa waa aniga wey u fiirsa anigu wey sooma anigu qofka aaday u fiirsa kuwa tanna waxa aad tahay arday dadaal badan yaa dadaal badan aadkaas waa magacuyeel oo ah adigu waa macnaa ama you waxa ka bartaa mandheere wax ka bartaa wey wax weeyaan aadaasayto waa laga saari karaa marka waxwey wax ka bartaa wey waxa ma aha waa wax ka bartaa mandheere waxa ay xiran tahay dhar wanaagsan aydaas waa maxay gabadhay sheegaysaa iyadu shii wey waxa aan jecelnahay aantan way soo noqotay marna waxaa loo isticmaalaa qofka koowaad marna wadarta oo ah innaga ama inagu ayaa loo isticmaalaa aadtaasoo kale waxa aad cuntaan marna waa idinku marna isaga baa loo isticmaalaa aytaasoo kale way soo noqotay waxa ay ka shaqeeyaan isbitaalka Djibouti iyagu wey marka aydan waa maxay marna waxay sheegtaa qof dumar ah oo lab ah marna dad fara badan oo iyagu adigu marka aad tilmaamaysid oo iyagu aad leedahay waxa aynu booqanaynaa guriga abti xuseen aynu waa haween waa wey annaga wey marka waa magacuyeel gaaban oo yeela ah la socda leeliskan baad akhrinaysaan waadna ka jawaabin arday kasta waxa la rabaa inuu akhriyo wuxuu ka kooban yahay ilaa 5 su'aalood 5taas su'aalood baad si fiican u akhrinaysaan waadna ka jawaabaysaan leeliska oo ku saabsan yahay casharka hadda aan soo dhiganay oo siyaabo kala duwan aan anigu u qoray marka leeliska si fiican u akhriya ardaygu ha akhristo ama macallinku ha u akhriyo ardayda kadibna ha ka shaqeeyaan leelisku qaybta ugu dambaysa waa qaybta tan oo ah ku buuxi magacuyeelada gaagaaban halkan magacuyeel gaagaaban ayaad ku buuxinaysaa fiiriya isagu waxa dash ama xariijin waa ku buuxinaysaa anigu waxa waa ku buuxinaysaa ma jeclahay in anigu waxa xariijin waad buuxinaysaa marka cunaa kalluunka iyo hilibka sidaas oo kale kan d waa maxay idinku waxa saas oo kale khana
waxa nahay walaalo isjecel marka saas oo kale waad ka shaqaynaysaan cashirka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa intaan kulmi doono cashar kale waxay macalin Cabdiqaadir oo idin leh nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiiso leh